record baa lagu shaqayn jiray double decker la yiraahdo record la yiraahdo reel to reel oo laga yaabo inaan imika dadka badankiisa markaa sheegay garanaynin xataa hadduu codkiisa u bogi waayo barnaamijkaas si toos ah wariyo akhri jiray farsamayaqaanku ka saari jiray masuul Yasmin markii ay shaqada aadka u adag noocaas galeysay sidee ku bilowday iyadu koobi 9 marka laga hadlayo dab magaaladan daleerkana kala ku wada filan muu jirin idaacada radio Hargeysa kale waxa loo shidi jiray ijiinka waxa ku khasbanaan ka farsamayaqaanka idaacada furaya inuu shito bal waxaad ka warantaa shaqada saawadaga soo bilowday ee halka ka soo gaadhay caqabada noociyay balada horta wax kasta caqabad bay leeyahay laakiin waa sad ka dhigato bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh nabadda wadayaan meel kasta joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo maanta la yeelanayno Yasmin Axmed Yuusuf oo ah rugcada saxaafadeed isla markaana ah rugcada dhanka waliba ana dumarka ku badnayn farsamada Yasmin Axmed Yuusuf baan soo dhaweynayaa waxaan rajeynayaa inuu noqdo waraysi aad wax badan ka faa'iidi doontaan Yasmin waxay ka mid tahay rugcadayada saxaafadda Soomaaliland dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyay arimaha farsamada ku hawlana dhanka dumarka sharaf bay tahay inaan waraysi la yeesho Yasmin Axmed Yuusuf soo dhaw maro aad iyo aad baad mahadsantahay Naciime Cabdi Axmed adiga iyo Arre Edeg Media waan hambalyeynaya waan soo dhaweynaya aad baad mahadsantahay maro waxaan jeclaan lahaa Yasmin maanta waraysigan wuxuu iga duwayay waraysiyada kale waxaan xiiseynayaa in gabadh farsamada waxaan arki jirnay hablo wariyaala farsamadu way yartay marka loo eego in gabadh farsamo yaqaanado muddo sanado badan ku soo shaqeynaysa ay maanta dhinacayga fadhido farxad gaar ah ay tahay bal ugu horeyn Yasmin watuma aad iyo aad baad mahadsantahay Naciime mar labaad waan dhawahay Yasmin waxa weeyaan Yasmin Axmed Yuusuf waa hooyo caruur dhashay waa oo farsamo yaqaana oo shaqaale madax bannaan iyo ku dawladeedba soo martay 34 sanadood ee ugu dambeeyayna miidiyahaas ku hawlanayd oo ku jirtay in badan taqaan Yasmin wata Yasmin hadaba muddo dhowr iyo 30 sano waxay ahayd farsamo yaqaanad ka tirsan radio Hargeysa bal xilligaas Yasmin jeclayna dib noogu celiso halkaad ka soo bilowday shaqadan oo la aaminsan yahay in rag qaban karaan oo aan marnaba aanay dadka dhagahooda ku soo dhicin ama aanay is oran gabadh baa ka shaqeysa bal soo dhaw bal xilligaas ka waran horta wax weeyaan marka laga hadlayo farsamada waa saad u sheegtay waxyaabaha waxay ka mid yihiin wax la been fakatay runimo gaadho waxyaabaha waxay ka mid yihiin loo haysto inaanay haweenku qaban karin ama ay ku adeegeen laakiin waxaad moodaa xiliyadan horta inaynu ka sii yaraanayna waxa oo ay day wax kasta aynu qaban karayno la arkay wax waxa waxay indha arkaan ee ilka gooyaan ay Soomaaliland tira marka wax weeyaan markii la arkayna wixii qaban karayaan baa horta imika loo soo noqday laakiin markan xilligaas oo kale ka sheekeeyo aad bay ugu yarayd waxay ahayd mar dalkana burbursanaa markan aanu sector farsamada bilaabay 19 afar inaan bay la galay oo aan la shaqeynayay xilligaas waxay ahayd xilli aan wax qalab la haysan record baa lagu shaqeyn jiray double decker la yiraahdo record la yiraahdo reel to reel oo laga yaabo inaan imika dadka badankiisa markaa sheegay garanaynin hase ahaatee radio Hargeysa keedkiisa oo kale marka la arkayo TV-ga qaranka oo kale loogu tagayo waa record waaweyn oo bahalasaas oo wareegayo reel to reel loo oran jiray lagaga shaqeyn jiray xilliga kuwaas oo dawladda siyaad bare laga dhaxlayo ee halkan jooga loogu soo galay ayaa inta badan laga shaqeynayay waxyaabo qaarkood waxa laga leeyimay SRMT radio halgan bali gubadle wax yar yar oo la isla kaashado cajaladaheeni kaasadka ah iyo waxaas lagu shaqeyn jiray sida sheegay afarinani aniga aanu ahayn waxyaabaha ugu difficult ee ugu adkaa aan oran karo wallahi way kuugu adkaayeen waxa kamid ah xilliga waxa mujirin koobi 9 marka laga hadlayo dab magaaladan daleerkana kala ku wada filan muu jirin idaacada radio Hargeysa kale waxa loo shidi jiray ijiinka waxa ku khasbanaan ka farsamayaqaanka idaacada furaya inuu shito maadaama aan farsamayaqaan ahaa afar inana marka ay la shaqeynayeen inta badanna waxaan gali jiray subaxii idaacada oo 6 barka subaxnimo ayaa shidi jiray oo halka idaacada radio Hargeysa imaka taala ayaan gali jiray halkaas ka soo lugan jiray 6 subaxnimo ama 6 oo ay gaadhin lugtan halka ku imaado tim cadaan ku soo gali jiray saano lugaynayo ijiinkiba hadana ay sugaya mararka qaarkood waxa dhici jirtay inuu qabow noqoto markay ijiinada laga hadlayo kale haddana waan ku khasbanaa inaan ijiinka shito marka waxyaabaha ay igu adkaa waxa kamid ah hadda anoo dumara ayaan ijiinka shidan jiray laakiin markan way kaliya la wadwadeen arkay waan la qabsaday
muddo malaha 2 sanadood ku dhadhow baan oran karaa oo jiin weyn la helayo dad may jirin markaa dad mushaar ma jiro wax la cunaa ma jiro askartii markaa ilaalin jirtay idaacadda ayaa xilligaa raashin la siin jiray marmarka qaarkood bay nagu khasbi jirtay bariiska inaan wada cunno annaga ciidankii meesha joogay taasaa keenaysay inaan xitaa jiinada shidano markaa waxay noqotay inaan jiin ka shito waxay noqotay inaan idaacadda shito marmarka qaarkood narrationka markuu habsaamo ninka idaacadda xidhiidhinaya waxaan soo qaadan jirin maadaama wuxuu maqsan yahay waxaan soo qaadan jirin mikrofoonkayaga idaacaddana anaga isu furi jirnay anigoo kale exactor markaan waayo wariyade ama farsamo yaqaan kasta waan ku tababarnayno imika farsamo yaqaanka jooga waxa laga yaabaa inaanu labadooda balance gareyn karin laakiin imika xilligaas oo kale wariyaha anaga isu noqon jirnay idaacadda anaga isu shidi jirnay ijiinada meesha anaga shidi jirnay marka shaqo kastoo inamadaas qabanayeen waxay ahayd mid aanan iyaga u daba fadhiisan jirin ee mid aan la wadaago shiftigayga ka soo baxay ahayd marka marxaladda adag ayaa lagu shaqeeyay aad ahayd farsamo yaqaankii meesha aad ahayd kii shidanayay jiinka ee wariyahayd mas'uuliyadiina aad qaadaysay oo hadii qalab dhaco oo kale inta baan isku qaban jirnay xataa markaas oo kale marka laga hadlayo farsamada oo kale waxa laga yaabaa wariyuhu imika inuu bee'ada uu ku jiro kale isaga waxaan markaan arkay imika wariyaha hore saasan yeelaysa laakiin xilliga lama oran jirin barnaamijka tayadiisa iyo quality-giisa iyo hadalkiisa iyo editing-kiisa wixiisa waxa iska lahaa farsamo yaqaanka حتى هادو عدكيسا u bagi waayo barnaamijkaas si toos ah wariyo akhri jiray farsamo yaqaanku ka saari jiray ma suurtoolada laakiin soo bax baa la oran jiray mar hadaan waxa ay akhri kareen way markaad 4 jeer waliba barnaamijyada recording-ka 4-5 jeer markaad qofkii ku celiso soo xafid baa la oran jiray rehearsal badan soo maro dibadda u bax laakiin maanta intaan arkay dad kaaba yeelayba oo waxay heleen fanaankii wuxuu helay hees laga duubayo kolba yar baa la duubay دللم ولا طوبة دللم ولا طوبة وريبة دللم ولا طوبة وابل سوكين جينيها كمبيوتر يربع لها وإحنا صار سوق كمان لكن حلي جا قف كتجون بورية ذي فرصة ما لبده بقول تري تواي عد بلقى قاعد تري لسه ما قل تري إذا حدا كلا لما قل تري إذا عاد ريدي أرجس من هرت إذا عاد له إما كده وين السوشيال ميديا إذا عاد يلا إيه بدناي لكن برجع واحد ترتي فرصة كليه ترى فرصة waxay doon radio hargeysa waxay dad qof kasta wariyo doon radio hargeysa yimaado hada TV ma jirin marka taasa kalifaysa in dadka codkoodina la xusho dadkuna ay noqdaan dad adag oo iyaga laftooda garanaya meesha tagayaan marka farq weyn baa wallahi xilligan waan xasuustaa u dhaxeeya Yasmin markii ay shaqada aadka u adag noocaas galeysay sidee ku bilowday iyadu waxaan ku bilaabay halkan timaadaan ka bilaabay sidaan markii hore sheegay wixii markaa agabkii yaalay ma wariyada haysta farsamo yaqaan markasta aan farsamo yaqaan ku tababarnaa shaqada sida ku soo shaqada saan ku galay markasta waa farsamo yaqaan banaha marka tababarka halka ka heli jirteen farsamo yaqaannimada markii ugu horeysay tababarka waxay siiyay Xasan Shukri Cali oo markasta sheegan halkan ka salaamayo intaan dalkaba laga qaxin anagoo yaryar oo arday baan imi deetana wariyanimadan sirgal kuma haboonid baa lagu yiri farsamadan bartay anoo wixii bilaabay ayaa dalka laga qaxay markii dambe halkan la yimi xaga baligubadle idaacad baa laga furay oo deetana idaacadda SNM ayaa la isugu tagay anigu xilliga idaacadda SNM maan ahayn dadkii ka howlgalay waayo kama bakur baan joogay markii dambe baligubadle yimina waxa noqday dadkii Ferrisaid-ka la baray ee waxa noqday marka caafimaadkan ku biiray deetana waxaan ahaa dadkii dhaawaca baligubadle dheeyay walaa dumarku inta badan marka meelaha laga sheegayo ay sheegaan ترير أو كمده هاي تدك دعوة دليل تدك جبهة وحنو هنا نيجي صفية على يده الله يرحمه كشقين إذا عاد الراديو يرجس إذا عاد الراديو هلجن وهيد قبل يقول رزقه والرمسة سام تيم وحنو هنا تنا تدك عافماتك كقريب كله الدعوة دليل مركانو حيل قافيل كعافماتك أيامو بيري مركد بهالكن ليهمي أيام فيل كي يكسر نقطة مركينا فرصة دي ما برتك سيبلها iyadoo ay wax ku sii duubayeen oo aad ay bilaabantay laakiin qalabkii waa kala nooc بريغاد إذاعة أو ركبنا وين به لكن مركز ريكوردر يرد دكرنا كاسد يحبل الستة وده وحير في كلام ده حلقة هين أيال الستة مركز طيلة كان قاطع إلى ما أنا كمان تا بدينا أقول الرقمته هذا ديجيتال دي هذا أنا لوجي ورطيبة أنا ولا بالواحد كورنتا شغلة سوا ده قد صوب بلودي هالك سوق عليه عقبضة نوعية بلاد ورتوح كستابع عقبت بيلي لكن وصلت كرجت أنا وحنا هاي أنت بدن تدك عقبتها أذك وذكرنا السعادة قبل أنت صار ويسي حبين مدو تدك لكن وحنا آذو حسوسته إني دتك إني تدفع عنها هاي ما أنت لقى ما يعبا أنا أنت حبين سوق دك كل جديد اللي بسنت هالكاس كسر نحمر تلم نبت قليو شك باكرة وحياة باكرة تعديات كرة لكن برجع هذا حر يا حلال بدو وددا اللي بينشرت
markaasaa xataa hadduu qofku eego qofka kalena war maxaad weydiinaysaa inanta kusoo boodaya marka waxaan aad horta ugu mahad celinaya dhaqankeenii siduu ahaan jiray marka xiliyadan imika horta halkaa waa يعني waxaan oran karaa farq weyn baa u dhaxeeyo halka marka laga sheekeynay inay cabsi badan lahayd beriga ma jirin iyadoo dalka la yimi xilli aad u adag ahayd haddana cabsida maanta la qabo ee ah inaan gaarigi la aaminin oo qofkii habli shaki ku jiro la leeyo bilo tacadi loo geysta bilo kufsi dhaca waxba inaan afka ka dhawnaa inuu nidhaano ma jirin beriga laakiin shaqada adag ee caqabada ahayd ee dumarnimada ee jiinaad shidanaysa ee idaacadaad shidanaysa ayaa jiray laakiin anuu ma oran karo marnaba caqabad baan arkay haddii lagu riixo waa lagu riixaya oo waxa la oranayaa waa dumar oo waa lagu diiday xitaa markaad galiso intaaba waan soo maray waa lay diiday oo ma qaban kartid baa laygu yiri oo kuma haboonid baa wax walba waa layiri dhagahayga aan ka furaysto ilaa yaana anu hadafkii halkan doonayay gaadhay cidnaba ma joojin ilaa maantana ma aaminsan caqabad qof kaliya xidhi karto isaga qofku is xidhaya waxaasoo dhan iyo intaasoo sanadood ka soo gudbay baad leedahay marka adkaysi laga gudbin baad leedahay waa adkays haddaad adu hadaf leedahay ma hadhaysid laakiin haddaad marka horeba niyad jabayso waxaan odhan lahaa marka horeba la iska joogo waayahay hablihiina taasaad u dirtay markay iminka inaan doonayso inay farsamada yaasmiin ay halkaa kasoo bilowday ee adag ay soo gasho xilligan iyo xilligaa bal farqi noocee u dhexeeya waxa u dhexeeya maanta waxay haysataa wax allaaliya wax kastoo inantii u sahlay waxaa ka xiga inay tababarato oo ay wixii barato koow waxaa ka xiga inay ka go'naato inay waxan barto waad ogtahay hablaheenu nicmo inta badan haddii imika TV loo shaqo tagayo ma arkaysid inaan odhanayso anu kamaradan aan doonaya way yaryiin markiiba inantu waxay doonaysaa in halkaa fadhiisato wariye noqoto uma jeedo qalabkan adag waxaad moodaa in inta badan aynu ka dhacayno shaqada adag iman mayso haddaba baan leeyahay in dumar yiraahdaan maxaa sida naloo oran waay marna aynu shaqada adag diidno runayna run beenna waa inta badan waxaanu ilaa shaqadii baa caynkan haddaynaan u badheerin shaqada adag tafududna helimeyn marka hore waxaan leeyahay maanta waxay haystaan jaanis computer bay haystaan si yaroo fudud bay waxoodii isugu keenin karayaan waxaaba ka xigun baan leeyahay inay iyaga ka go'naato maadaama ay qalabkii haystaan oo ay meelii badnaan institution baa jira maanta oo TV-yaa jira oo madax banaani maanta waxaynu maraynaa heer qof kasta iskii u shaqaysto oo social media wadaga arkay idaacadaheeni tanaa kamid maanta arrin adag baynu fadhinaa dawaa waxa weeyaan wax aan cidina kugu amrin maanta la oranay ciima cid bay u daba fadhiisanaysaa waa tadawar iyo heer aad gaadhood ku adkaysatay marka ka go'naan baan anu hadii jeer waan sheegay hablaha ka go'naan iyaga laftoodu inay taakuleeyaan halkaas la inagu reebaa oo dumarku inta badan waxaad moodaa inay isyara cidhiidhiyaan cidhiidhiga ka daa'imaan loo ragga isu baneeyo istababara fursadaha la soo riixo fursadiina isku koobina soo maaha taasina waa dhankii caqabadaha waxa leedahay nolosha caqabad ma horaha loo socdo maye kamana baxdaba de oo adduunkani baaba gabigiisaba caqabadaha laakiin haddaanad samariye kaga gudbaynin dulqaad iyo adkaysi de waxaad guriga hadhiyaabeen caqabad bay haysataa marka caqabadaha la iska daayaan lagu dhagsanaa opportunity-ga loo weecdaan yaasmiin markii hadaba aad shaqada intaas sano kusoo shaqeynaysay ma jiraan cid aad tababartay maadaama tay gabadhii ugu horeysay shaqada qabata dad farsamadii aad sii bartay oo ka faa'iiday ma jiraan horta tababaro badan oo dhan walba la bixiyay inta badan dadku farsamada ka waraman ha waxa jira dad badan oo farsamada baro maanta wasaaradda warfaafinta madaxka mar walba oo sheegayaan Cabdirasaaq oo madaxa farsamada agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxa ka mid tahay ardayda wax baray Khadar Xuseen Siciid oo agaasime ku xigeenka waaxda xidhiidhka dadweynaha ee wasaaradda warfaafinta kamida waa dadka yacni madaxdan sheegaya dadka kale way badayin oo dad badan baa jira waxa kamid ah oo aanan inta badan sheegin dadkan aanu tababar waxa kamid ah fanaaniinta actresska ayaan ku taxalqaa aad haday jilitay haday script-ka sida loogu tababaro tahay dadka ugu badan ee aan anu ku xiranahay waliba waqti xaadirkan dambe waxa kamid ah fanaaniinta waayaan waxaan script writer ugu yaraan 18 sano u dambeeyay riwaayadan qoraa oo aan anigu waliba sameeyano cidna u daba fadhiisan riwaayadahayga script-ka aan qorayo fanaaniinta aan ku tababaraa sidii ay iyagu u noqon laayeen qaar u akhriya script-ka oo aan laga gudbo wixii hore la iska oranayay marka fanaaniinta inta badan hay'adda HBA barnaamijyada saxan saxo oo aan muddo 24 sanadood la shaqeynayay oo aan tababaradoodana aniga laftaydu meelo badan ku soo qaato
hadday tahay dalal dibadda Afrika ah hadday meel walba toon scriptwriter-ka iyo producer-ka iyo acting-ka xitaa in kasta oo dhinac walba laga eego saxaafadda marka laga eego maanta waxaan israa malaa waxaanad qaban karaynin xataa kamarada editing-kaas uma igu yaraada kamarada laakiin xitaa kamarada waan duubaa riwaayadda waan qorayaa waan edit garaynayaa script-ka waan sameeyaa editing-kayga caadiga ahaa sida dadka faraha kaman qaadanaya ilaa maanta computer-kayga inaan dhinaca ku sito wuu igu jiraa barnaamijka imika haddii la yidhaha barnaamij edit garee qolada xagga ayaa xaggaa buu riday baan marnaba shaqadeeda ka markaa fanaaniintii waxaa ii soo raacaa ururka saxaafadda wiijooda ogta inaan muddooyin badan ka shaqeynay dhinaca guddoomiye ka noqdo mar xogeeye ka noqdo mar ka noqday maxay ahaydey boodhkiisa ka mid noqday iyaga laftoodana dhinaca wariyayaasha kale marka laga hadlayo imika xilligan oo kale waxaanu leenahay idaacad la yidhaha Faswa Radio ama idaacadda codka haweenka oo shaqeynaysa ilaa 2015 dadka yaryar ee badi ka shaqeynaya markii wariyanimada noqoto waliba dhinaca farsamada dadka aad ugu tababarin ee tababaro kale oo bixinaabay ka qayb qaataan laakiin dhinaca script-ka iyo wariyanimada iyo producer-ka aad baan uga caawiya xitaa waxay gaadheen heer ay imika documentary soo saaraan marka waa dad aad u waxaan oranayaa tababaran baa jira dad badan oo tababaray baa jira haddaan imika tusaale ahaan oo kala soo qaato imika hibe aadan oo kale xafiiskana ka shaqeysa Faswa Radio ka mid ah dadka ka madaxda waa inay yaro dhakhtarada oo caafimaadka baratay maanta waxay la tartantay Soomaaliya waxa la leeyahay goboleedeeda oo dhan maca Soomaaliland marka lagu daro waxa lagu tartamay barnaamij ka hadlay cimilada adduunka oo BBC-da inoo soo bandhigtay 40 qof ama 40 institution baa barnaamijka ku tartamay waxa guul ah inay idaacadda Faswa Radio oo idaacadda wiijo idaacad dumari ay wanka gasho xitaa radio Hargeysa ah position-keeni ugu weynaa ama institution-keeni ugu weynaa uu tuugayaga galo wax lagu farxo waa wax dumarku ku faano marka gabadha baan leenahay waxaan leenahay xoog baan leenahay bartoona aqoonsada baan leenahay waliba rageen marka la hadlayna absolutely mar hadii idaacadda haweenka inaan ka soo baxday idaacadda halkii ka shaqeysa marka magaalada gudaheeda social media waa online waa radio online wada sidaan imika maadaama dadka online-ki baba lagu bato wadigan warkii mobilkaaga inuu ka helaya marka waxaan isnirday dadkii analogiga ku dhigsanaan la jaan qaado social media weeyaan idaacadda marka halka analogi markaad ka timi tusaale waxaad maraysaa inaad socialkiina dhex joogto waliba idaacad ka samayso aad iyo kii ugu dambeeyay waran marka xalaanay update-kana noloshu ka maaranto in halkii hore la sii haysta ma dadku way dacaydeen waxay yiraahdaan marka qofku weyn yahay halkiiba kaga hadha maxay waxba lagama hadho ilaa intaad gaboobaysa soconaysa cimrigaagu jira waa inaad daba socotaa oo ka hadhina shaqada qalba halkii loo guuro marba halkii loo guuro adiga arkay social media baa la maraya ka marba ka loo guuro man daba socotaa kana idinka wanka hadhina baan kana idinka wanka galabeen ma sha Allah waa wax aad iyo loogu faano gabagabadii weyn marayna ugu dambeyn Yasmin hablaha wariyaasha maanta fursad haysta social media haysta platformada kala duwan haysta YouTube helaya TikTok helaya Facebook helaya Instagram helaya Twitter meel kasta oo social media isla markaana dunidan casriga nool talada ugu dambaysa aad siinaysa maxay tahay wax weyn talada ugu dambaysa siinaya horta wax weeyaan kow markasta waan sheegaa horta waa inay hablo iyaga laftooda istaakuleeyaan waa inay hablaha ka goonaato inay shaqeeyaan waa inaanay habluhu noqonin intay tiraahdo wariyaa noqonaya haddana wali waxa sii socotay hebel oo idoobtay anu kelmadda waan qawadaa waxa weeyaan qofku hadda wixii ka goonaado kamaradiisa sita ama recordkiisa sito de sabab intuu qof kale markuu population-ki dhex tago ugu dhiibo ilaaho hebel oo idoob horta ma taalo waxa la horta waxa idinkeeda ka go'an ha noqoto inay shaqadiina qabsataan tu kalena way haysataayo aan markii hore kabada habla caqabada kaliya haysataa waxa weeyaan habluhu horta waxay u baahan yihiin tababaro badan helaan habluhu waxay u baahan yihiin qalabkii ku shaqo gal lahayn inay helaan waayo inta badan waxaad arkaysaa inuu dhex geliyo dadkii inuu ama tol ha noqdo ama nin ha noqdo ama madax ha noqde markuu yiraahdo maanta kamarad doonto oo oranaya inta qof weydiiso waan shaqaysanaya kamarada ay si farta laga saaray wax laga yaabo intay inantu istaxallo yani iskuba taxallujiso istiraacid doona in la yaabo la yiraahdo waxaad kamarada ku falaysaa habluhu waxay u baahan yihiin tababaro habluhu waxay u baahan yihiin qalab la siiyo habluhu waxay u baahan yihiin meelihii ay ku tababaran lahaayeen intaaba way u baahan yihiin waliba anagu waxaanu ka midnahay dadka looga fadhiyo idinka laftiinu ka mid baa tiino inaad ku soo dhaweysaan meeshiini ururadii saxaafadda haweenka aad baa loogaga baahan yahay kelmadda waxaan leenahay dadkan taakuleen anagu diyaar baan u leenahay inaanu tababaradii siino haddana kolleyba gacan keliya waxba ma qabato waayo xilligan waxaad moodaa inuu dalkii humanitariankiisii dhaflaban baynu qaadanay ama waxa la yidhaahdo
horumar dee marka waxaa lumaya wixii hoos oo dhan marka waxaad moodaa kelmadda inay hay-adii iyo dadka taakulan jiray tababaradii dib uga yara gaabsadeen oo la mooday dee inay dalkii horumar gaadhay oo dee maba odhan horumarka qudheeda qayb bay ka tahay qayb bay ka tahay laakiin dee dadkii baa la xoojinaya marka hay-adaha laftoodii baad moodaa inay imika leeyihin idinkii waa horumar gaadhay horumar waa la gaadho dee dadkiiyo magaaladii adduunkiiba waa tan ka muuqata laakiin weli taakulayntii dadku may dhammaan marka hablaha cid kastoo aanu anagu ka midno ku taxalluqa waxaan leeyahay weli tababaradii iyo in wax la taro iyo in qalab la siiyo intaaba way u baahan laakiin waxaba waxaa ka dhow ka go-naantoodii istaakulayntoodii inaanay iyagu lugta isqaban waxaad moodaa inuu difference ama faraq weyn u dhexeeyo marka laga hadlaya haweenka imika saxaafadda ku jira iyo haweenkii hore waxaa maqan isjeclaantii waxaa maqan isku duubnidii waxaa maqan isku taakulayntii waxaan leeyahay hablaha sidaa isugu xidhnaada haddii kale idin lumin aad baa mahadsantahay aad iyo aad baa mahadsan tahay yaasmiin axmed yuusuf oo barnaamijka marti nooga ahay waad mahadsantahay